ummada Soomaaliyeed oo dhan salaamaya waxaan leeyahay arrinta saylax ka taagan ee wali masruuf ku kiciyay falkay wuxuu yiri caadiga dhaqan baan u lahaa oo waan saylax waan tagaya oo waan ugaaskaygana waan geysan xeerkaygana waan ku dhigan ida buursina wuxuu yiri caloolxumadii dhixruudaa sara kacday oo wali masruufish wali hadal bay dhashay markii wali masruuf yimid ida buursi waxaan leeyahay in lama dagaalamayna waan daweynayna walaalaha ayaa tihin nagama go'diin doctoraan li soo dirayna caloolxumada daweeya ciisana waxaan leeyahay dhukaagu diraysan yahay damaca waxa keenay daranya tirada dhukaaga haddaad jaga qof leeyahay uu ka guuru dhisan waayo damacba xaafada jaarka way iska dhisataa oo ay damacda amba qayla ka dhacda ninkan isaaqee dawladnimada yayabka nigu dul xukumana gada bursiga ciisowna arrin baa ku taala isaaqow wali masruufku meeshu ka socdo waa inaad heeshi haddii kale way ku galaafan wali masruufku meeshu ka socdo gada bursi kolla awdal state ka siiyay kolla durmaankii ciise tumanayay meeshiisa uu ku tumanayay waan dagaalamaynaa ka siiyay qaylada maanta cirkiga dhulka qabsatay keenay waa inaad eegti oo garati gada buursina waxaan leeyahay walaalahayow awdal state baa tiraaheen ciisana xaggan buu ka degan yahay isaaqna xaggan buu ka degan yahay de talaad keento ninkii aad la heshiin lahayd baan ahay ninkii aad la dagaalami lahayd maanta mii oo ninkii khafiifka ee isaaqe aqoonsiga ay ka qabsatay oday yar oo xayraan aad dikad joogi jiro kolba dumar uu qabsan jiray markuu islaanta qayla ay dhacday waa ka qabta ka rida waa la yiraahdo la dishi la yiraahdo war xayraan ka qabsaday aniga ma ahayn ninka xayraan asoo iska ahaa iska garanaysi markaa way dumarku oran jireen war wadada marin xayraan ka ku qabsano ninkii walaaba ku qabsan bay hablaha ka oran jireen dumarku isaaq waa kiyo khafiifkii waxay qabsatay aqoonsi ninkii khafiifka ana dareen baad gelisay ee aqoonsiga ay ka qabsatay ciiso ku fayooba oo dhasheed ahaydeen dareen baad gelisay accident siyaasadeed baad gashay saad tahay accident siyaasadeed baad ku jirtaa waraqligu soo noqdo oo doctorada qaabil ku imanaya waa lagu daweynay ciisana waxaan leeyahay walaalahayow dukiin lagu dareensan yahay daranya tiro damaca waxa keenay waa daranyada durmaanun iyaan walba la tagine inaad daranya tirati oo dhukaaga magaalooyin ka dhigti oo ceelal ka qodi oo nasiibka maanta ilaahay ku siiyay ka faa'iideysatay konteer baa socdee jiyo adduunyada waxa hadhaya taariikh taaba ku dul taala gada buursina waar kulama dagaalamayna waan ku daweynaynaa walaalkayaa tahay nagama go'di de eksidaanka siyaasadeed gashay aqligu waa inuu ku soo noqdo ilaahay aqliga ku soo celiyo waxaan ku diido ma helaysi gobolaan u diido laakiin hadduu isaaq ku diido waad heli oo daanu waa kula degana de khafiifkiina dareen geli ciisana dareen geli waa ku badxda taalaata oo waa la isku karakisi baholaha bili aadan ku dhacayo aqoonteeda ummadaha ka duda baholaha jira magaalada baadihi orodka dhagoolaha la ordayay ma ayna baholaha jiro aqoontooda bulshooyinka ka weecisa oo wadada ku rida war aqoontii gada bursi waxaan leeyahay war waxaan orodka dhagoolaha ee wali masruufka ah dadkiina wuxuu sheega waxaan waa durmaan afar cisha oo dabadeed la iska kala hooyanayo marka waxa weeyaan orodka dhagoolaha la iska daayo oo si fiican ha loo fikiro hadafkii markii hore dareenka aad bixisay awdal state iyo ninkii dhasheed isla haydeen ee asagu meesha gobol ku lahayn inaad gobol midaata wada yeelatiinoo amba Soomaaliland wada ahaatiin amba Soomaaliya wada ahaatiin oo wax midaata ahaatiin oo abka dhawey yee ahayda laakiin caloolxumada hurdeen lagu kacday waa la masruuf bay heshee isaaqiyo war dawladnimadaada yayabkay galaafantani haddaad wali masruufku meeshu ka socdo heli weydi waxaan ku soo gabagabeynayaa hadal
إذا برسي هو كده وينينا كل ما دقالنا مين يساقونا نبتقليه ده صب واللي مصروفكم ماشوا كسعدنا هل دad كان إلهي هيسكو ولا ليو وصدق هايان الله يسكقدقو وسوت عينينا وعلى سبيح وحن كسو هالليو والسلام عليكم